بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن أو وناكسن داوديال meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkan aynu ku eegayno muuqaalka magaalada Cadaado tani wixii ka dambeeyay markii ay meesha ka baxday dawladda dhexe wadanka Soomaaliya oo dagaalada sokeeye ay ka bilowdeen wadanka Cadaado waxa ay ka mid noqotay magaalooyinka ay saameynta ku yeesheen dagaalada isla markaana uu ku dhacay burburka xoogan dagaalada ka sokow magaalada Cadaado waxay diris la noqotay kooxo hubeysan oo waxyeello u geysta dadka rakaabka isla markaana lacag ka qaadan jiray xaaladahaasi magaalada iyo deegaanada ku xeeran waxay ku jireen muddo badan horaantii sanadkii 2006 oo ay inta badan gobolada bartamaha iyo koonfurta ay gacanta ku dhigeen maxkamadii islaamiga Cadaado waxay noqotay taliska gobolada dhexe ee maxkamadaha waxaana markaasi ay shacab ku dareemeen amni iyo kala dambeyn intii ay maxkamaduhu ay gacanta ku hayeen magaalada Cadaado waxaa la dhisay qaar kamida goobaha bilicda leh ee magaalada sida xarunta madaxtooyada maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb uu hadda ku shaqeeyo in badan maxkamaduhu ma aysan maamulin magaalada Cadaado oo isla sanadkii 2006 dabayaaqadiisii ayay faaruujeen markii ay maxkamada islaamiga magaalada Cadaado ay ka baxeen Cadaado waxay markaasi fowdada kala mid noqotay deegaanada kale ee bartamaha iyo koonfurta wadanka Soomaaliya hase ahaatee kuma aysan waarin dhibaatadaasi sanadkii 2007 ayaa qurba joogta ka soo jeeda deegaanadan waxa ay bilaabeen dadaallo ay ku doonayaan in maamul loogu sameeyo magaalada waxaana ay ku qaadatay waqti badan iyagoona meelo fara badan oo kamid ah caalamka kulamo joogta ku yeelanayay waxaana dadaaladaasi dibadda barbar socday abaabulo iyana gudaha ka socday bartamihii 2008 ayaa waxgaradka qurba joogta culimada iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshadu waxay ku guuleysteen in la dhiso maamul loogu magac daray Xaman iyo Xeeb kaasi oo kaalin ugu ka qaatay soo celinta amniga iyo adeegyadii bulshada Sheekh Maxamed Guuleed Keenan oo ah taariikhyahan ka soo jeeda magaalada Cadaado ahna suugaanyahan Soomaaliyeed ayaan ka wareystay arrimo la xiriira dhibaatadii ay soo martay magaalada Cadaado iyo horumarka iminka ay ku talaabsatay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wa sallallahu alayhi wa sallam ay soo martay magaalada Cadaado waa xaaladaha badnaa maxaa yeelay waa qadiim waxay soo martay dawlad waxay soo martay burbur waxay soo martay maamul hadda la joogo oo gacanta ku haya oo Xaman iyo Xeeb la yiraahdo haddii aan ka bilaabo markay dawladii hore oo qaran ah oo Soomaaliya ay lahayd ay jirtay inay maaragtay baa soo martay taas markaan iyo ka taabto هذا التاسع حكى تابر يا قرن كي هره يقويس كانوا عايزكوا هاي يدواتي السومرين يرفعت في كل عين الدولة دي كلا كلانتي تاهل كاسة بداية بربر كي مركو داعي هذا بربر بعداعي بربر كان داعي وحوها ميد عام كعامة والصومالي ده كل داعي ومركي وكل داعي الصومالي ده أهم مركي دولة دي اللي وياه القرن كبربره وحيد دعي شراء دعي ذلك اللي قبتي ليس الشيء ما يه الآن التاريخ هي رفعت قاسة شري كان أساسي أهي حالة سومر تمركا بدأ هذه الشوكة كوكيريا أو أحمر مامور كحبان يحيى ثلاثة أي جارين وإلهي كتوسي سيدا سطرية لين سؤالوريين والتشدين مالكودي نفتودي مسكحة سوق كينين بل يدبد انت هدنا اي جوجتا الحمد لله نبض عامة او لوسي حكرا تالا مركا صدح حاجة جرين سوا مرتي مدي هدي جوجتا انا معانا وهذا قصة انتهى بأقوى نفسي مركا هذا ساسي مريسا هل كاتي جوجتا وحال تيري انا نسيب شو انا ضد ها وحاول حياة dhibaatada uu keenay burburkii
وحكم لها هذا وقابكي isdilkii isdhicii iyo isbaaradii iyo markii la lahaa bahalka la yiraahdo Mooryaan jirri markii ay wadada galeen oo fariisteen safarku mari waayay dhibaato ay ka dhacday dadku ka duceystay loo rafaaday oo waliba dalkan ay ku badnayd arrintaasi tan haddaan uu ka tilmaamo dhibkaasi soo martaa ugu foolxuma oo ugu liitay oo ugu daraa oo dadku uu maartay markuu soo socdo dhigi jiray quraanka inta soo akhristo ilaahu beeshaasna mooti oo meeshaasna dhaafi haddii ilaahigiisa ay gudbaan ay alxamdulillah dhigi jireen marka dhibaatadaas wiilal yar oo ciyaar ah oo aan badnayno markii xukun waayeen isaga dhacay oo burburkii ay ka faa'iideysteen ahaayeen ayagina insha Allah ta'ala haddii la isu yimid hadee waa maaragtay iska dhamaadeen warkoodii waxaa bedelay waa tashiga iyo wanaagga bedelay marka nistoo ha ahaato marka arrintaas ay jirtay oo ugu dhibaato badnay taas oo dhibkaas dabadiisa dadku markuu dhibaarko waxa dhibkoosiisa waa macallin dadka waxbu baraa waxbu fahamsiiyaa waxbu ujeedsiiyaa dhibkii markuu batay waxay garteen inay maaragtay dhibka say uga bixi lahaayeen dal iyo dibad marka hore waxay dadka maaragtay aqoonyahanka ama aqoonsha ah ama culimada ah badanaa marka koowaad waxaa soo curiyay dibadda dadka dibadda jira oo qurbaawi ah wadamada kale jira oo maaragtay u qalma oo cilmigeeda leh dadkaas baraarujinta keenay ku tashaday adduunka shantiisa qaaradood meel kasta ka dib joogaanba marka kabacdina waa soo qaadeen tale oo keenay beeshooda waa loola qaatay alxamdulillah waxa aad u sii mahadsan hadana dadkii loo keenay oo la baraarujiyay oo hawshii qabsaday oo hatta waxa kamid ah kuwii markaa dadka dhibay maanta waxa ilaahay mahadiisa kuwii maalinta dadka dhibay inay iyagiina ay balga yaabo inay hawsha hayaan oo ay toosinayaan oo ay maamulkii meel fiican ka hayaan kii dhimanaana waa dhintay kii iimaan la waxa midna waa baqay kii xoogay rajo ku dambeysay qayr ku dambeeyay waxa laga yaabo maanta inuu hayo hawlo waaweyn si fiican maanta ugu fiican tahay wax la mid ah soo maray midaan وقرت مركب ودمين ما حد شعش هاي إن كوباغدو waxaan ku baaqayaa arintan hadda ay sanno ilaahay baa iska leh waa ilaahay mahadiis awood kuma keenin dadku ma wada haysto waa nabadgeliyo nabadaana maaragtay wax walba aasaas iyo asal oo ah oo lagu hiri kara lagu hurdi kara waxaan leenahay dadkii awal baraarujiyay oo keenay oo isku hawlay maalkooda iyo maskaxdooda geliyay ilaahay ka siiyo jiso fiican laakiin waxaan leenahay meeshii ka sii wada dadaalka sii dheereeya kuwa dalka joogana sidoo kale leenahay kolba waa aragtaan nabad iyo nabad la'aan waxa ay kala tahay way soo aragteen ka faa'iideysta maantana gacanta ku qabta waxaan kala ku sii darayaa ninkii awal islaha waxma ma noqonayso xoogaa dib isu dhigay maanta hore ay soo mariyo waa inuu baqaylimada ka baxo waa inuu xoolihiisa loo huro meeshan ma ahan maaragtay wax kale waa dad tashaday way una tashaday inay isdaryeelaan nasabkooda iyo meeshii joogaan hadda nabadda faa'iidadeeda waxaa ka mid ah ummadihii dhamma way soo guuriyeen dariska ahaa maanta ceelkay wada cabayaan xareedday wada cabayaan waa iska gacanta is haystaan faa'iidadaas nabadda iska leh dadkii keenana aad waxaan ugu ducaynaynaa khayr badan allah siiyo ha ka sii wadaan meeshooda kii awal dib isu dhigayaan ha ku soo darmo ha yimaado soomaaliyadana waxaan ugu baaqayaa inay maaragtay liibaantaas oo kale gaari doonaan u rajaynaya oo ay maaragtay tasho doonaan qolo waliba tala guudna loo gudbi doono markaas saasaan leeyahay cadaado waxay caan ku tahay arga ku taalla afafka hore ee magaalada gaar ahaan dhanka koonfurta taasi oo bishay bilicda magaalada waxaana dhammaanba ay leedahay adeegyada bulshada sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo ganacsiga marka si faahfaahsan looga hadlayo dhanka caafimaadka magaaladu waxay leedahay isbitaal guud oo daboola baahida caafimaadka marka laga reebo isbitaalada sida gaarka loo leeyahay kaasi oo dhawaan si toos ah u howlgeliyay maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb dhanka waxbarashada magaaladu waxay leedahay maxadyo manhajadoodu kala duwan tahay jaamacado iyo kuleejooyin waxaana subax waliba goobaha waxbarashada u dareera arday lagu qiyaasay ku dhawaad 3500 ganacsiga magaaladu waxa uu yahay mid marba marka ka dambaysa sii kobcaya waxa magaalada ku soo badanaya ajabyo shidaal
ganacsiga caadiga iyo horumar kasta oo bulsho ay samayso. isku soo wada duubo dadka ku dhaqan magaalada Cadaado waxa ay yihiin kuwa danahooda ka tashaday isla markaana horumariyay degmada Cadaado. Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi Shaate Cadde oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb ayaa waxa uu sheegay in maamulkan dhawaan la soo magacaabay oo wax ka qaban doono arrimaha caafimaadka, waxbarashada iyo dhinaca ganacsiga, isagoona sheegay in iminka ay gaareen ama la gaaray tallaabo lagu faani karo. su-aasha haddaan ka jawaabo waxaad u kala qaaday waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga. runtii waxaan dhihi karnaa alxamdulilah, ilaahay baa ku mahadsan. waxaan dhihi karnaa higsiganagu waxaan rajaynaynaa 3 sano oo dib loo soo magacaabay ama maamulka cusub jiritaankiisa loo yeglaalay in aan ku gaarno mise waan higsanayno 80% haddii la idmo. haddii haddaan kaaga warramo su-aashaada kaaga jawaabana waad aragtaan malaynaya magaalada xagga tacliinta haddaan ka hormaro 2 secondary school ayaa ku yaala, machad oo dibloma bixinaya. waan rajaynaynaa haddii la idmo in mar dhow la bilaabo jaamacad. waan rajaynaynaa haddii la idmo. caafimaadka waxaan malaynayaa oo ah aasaaska nolosha inay joogtay inaan dib u howlgelin isbitaalkii guud oo muddo 21 sano aan shaqo macna la qaban. anagoo rajaynayna in tiim caafimaad dibadaha ka yimaado iyo dalka gudihiisa. amniguna waxaan dhihi karnaa waxaan nahay meesha hadda aan dhihi karno gobolada aan jaarka la nahay meesha ugu nabdoon. marka waxaan isleenahay anagoo hadda weli xilligan dambe aan shaqaynayn wax ka badan 3 bilood. tan waxaan rajaynaynaa haddii la idmo sanadku intaa hore dhammaan inaan gaarno mustawa aan higsanayna haddii la idmo. maamul goboleedka Xaman iyo Xeeb ayaa waxaa la dhihi karaa waxa uu kaalin mugla ka qaatay arrimaha aasaasiga oo ah bulshada. waxa uu kaalin ka qaatay soo celinta amniga, arrimaha caafimaadka, nadaafadda iyo horumarinta waxbarashada. magaalada Cadaado waxaa soo gaara inta badan dadka soo cararay dagaalada aan joogsiga lahayn ee ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya, kuwaasi oo nolol dhaanta mid ah magaalada Muqdisho u soo raadsaday magaalada Cadaado, iyadoona dib u dejinta dadka ay gacan ka geystaan maamulka Xaman iyo Xeeb iyo bulshada ku nool magaalada Cadaado. guud ahaan barnaamijka aynu ku eegaynay muuqaalka magaalada Cadaado daawadayaal inta aynu ku soo gabagabaynaynaa. barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayay stuudiyaha TV-ga caalamiga ee Royal ee magaalada Cadaado. waxaad la socodsiinaya anigoo Mukhtaar Xuseen Maalin. tan intaanu barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmayno waa kaamirada Jeylaani Xasan Cusmaan. sidaa iyo nabadgelyo.